Bismillaahi Rahmaani Rahiim. Waxaan guda jirnay koorsadani Oracle Database sessionkiisii 15aad. Waxaan maanta ku baran doonaa iyadana qayb kale oo muhiim ah oo la yiraahdo recovering tables anagoo isticmaalayna commands. Commands-kaas marka recovering tables horta maxaa la yiraahdaa? Recovering tables wax kale ma ahan. Waa marka aad rabto table aad iska tirtay inaad soo celiso anagoo isticmaalayna Oracle Database. In Oracle ay suurto geliso table la tiray in la soo celin karo waxay suurto gelisay markii la soo saarayay Oracle TNG version-kaas markii la soo saarayay iyo ku soo dartay command suurto gelinaya in qofka user-ka hadduu iska tiro tables inuu dib u soo ceshan karo. Dabcan table markii la tirayana waxaa la isticmaalaa commands-kaasna laba nooc loo tiraa. Nooca ugu horeeya waa inaad table-kan inta iska tirto aad rajo ka leedahay inaad soo celiso. Noocaas markii la tiraayo table drop caadi adigoo adeegsanaya table-ka tiraysa. Markaan anigoo drop adeegsanayaan table-kii tiro wuxuu ii tagayaa meel la yiraahdo recycle bin. Marka table-kaas tirto waxa loo qaadayaa container logical ama data dictionary waxa aan dhahno kaasoo lagu magacaabo recycle bin. Recycle bin-ka sababta loo geenayana wax kale ma ahanay lacala hadaa u baahato inaad table-kan dib u soo ceshato inaad dib u soo ceshan karto. Sadaraadeed user walba oo Oracle server-kiisa ka dhex abuuran oo ku xiran wuxuu leeyahay recycle bin u gaar ah kaasoo uu ka heli karo object-yada lagu soo tirtiray. Marka si aan table inta tirno u soo celino marka hore user-kan hadda aan ku xirnaa waa HR intaanoo table ka abuuran. Table-ladan marka waa table-ladii user-ka HR-ka la socda ama human resource-ga kuwan ayaga ma rabno inaan tirno. Waxaan rabnaa table inaan inta abuurno kadibna table-ladaas aan tirno soo celino marna table-kii inta abuurno aan toos u tirno anagoo recycle bin-ka keenin. Object-yada markii la abuurayo dabcan object walba la abuurayo create laga hormariyaa maadaama aniga object table aan abuurayo waxaan ka hormarinayaa create table name-kiya la iga rabaa. Table name-ka sample table ah aan qaato sample table. Table-kan ma rabo inaan columns badan u sameeyo iyo waxaan rabaa inuu laba column iyo wax la mid ah yeesho. Labada column oo yeelanayo marka waxaan leeyahay column 1 oo data type-kiisa integer yahay sidoo kale column 2 oo asagana data type-kiisa varchar 2 yahay oo 10 ah. Waxoogaa ma rabo inaan ku shubo iyo waxyaabaha la midka. Table-kan hadda markaan abuuro marka table-kan waa abuur. Haddaan refresh idhaahdo meeshan oo right click idhaahdo refresh dhaho table waxaa ii soo gelaya sample table idhaahdo. Table-kan marka structure-kiisaan ogaan karaa waxaan dhihi karaa disk markaan idhaahdo sample underscore table. Haddaan idhaahdo waxaa ii describe haddaan ku sameeyo aan idhaahdo ii soo saar waxaa la ii soo saaraya warbixinta table-kan ku saabsan. Table-kan wuxuu ka kooban yahay laba column labadaas column mid data type-kiisa waa number ama integer waxa aan dhahnay midna waa varchar oo 10 ah. Table-kan aan rabnaa marka inaan tiro. Sidee loo tiraay? Waxaa loo tiraaya drop iyadoo la adeegsanayo data definition language commands loogu talagalay command ka mid ah oo la yiraahdo drop. Drop marka waa commands ka mid ah command-yada ugu caansan ee markii database-ka la joogo la adeegsado. Command-gaas oo ka tirsan data definition language oo structure-ka iyo waxyaabaha la xiriira markii aad object-yada nidaaminayso ama aad object-yada structure-kooda marka qaab dhismeedkooda wax ka bedelayso la adeegsado. Drop aan leeyahay object-ga aan tirayo waa table. Table-ka magaciisa waxaa la yiraahdaa sample underscore table. Haddaan sidaan iraahdo automatically waxaa dhacaya table-kan sample table la yiraahdo in la geeyo qaybta recycle bin. Recycle bin-ka markii la geeyo macnaheedu waxa waaye table-kan dib aan u soo ceshan karaa. Table-kan macnaheedu saas waa. Hadda table-kii waa tiri. Marka si aan u soo ogaado recycle bin-ka waxaan adeegsanayaa asagana commands kale oo ii suurto gelinaya inaan recycle bin-ka wax ka soo akhriyo oo ah show recycle bin. Haddaan show recycle bin iraahdo waxaa ii soo baxaya oo la ii soo saaraya recycle bin. Hadda recycle bin-ka waa kuwana marka waxyaabaha ku jira.
recycle bin waxyaabaha ku jira waxa ugu horeeya objectigan la yiraahdo maxuu ahaay sample table marka waa object maadaama uu yahay isagu maxuu ahaa object namekiisa waa table sida aad meeshan ka arkaysaa. Okay, hadda marka aan recycle bin ito siri waxa ku jira objectigayga oo sample table ahay object type-kiisana waa maxuu ahaa waa intaas xilligii la soo tirtirana waa maxuu ahaa taariikhda sida aad dareemayno waa taariikhda kana raba marka inaan dib u soo celiyo si aan dib ugu soo celiyo in order to recover si aan dib ugu soo celiyo waxaan adeegsanayaa command list yiraahdo waxaan adeegsan doonaa command list yiraahdo will use flashback command. Flashback marka waa command list noo suurta gelinaya inaan recycle binki ka soo qaadno table-keeni kuna soo celino meeshayna caadiga ahayd oo yahay in recycle bin soo celino sidaan ugu soo celinayaa marka si aan maxuu ahaa u adeegsano oo aan u soo celino waxaan adeegsanaynaa command-ga la yiraahdo flashback. waxaan leenahay marka flashback maxaan soo celin rabnaa marka waxaan soo celin rabnaa table-ka magaciisa nagala rabaa table-ka magaciisa waa sample table-kan si aan u soo celiyo maxaan leeyahay to waxaad ku soo celisaa before drop before drop haddaan dhaho oon intaan ran gareeyo waxaa ii suurta gelaysa in maxuu ahaay aan table-kii soo celiyo flashback succeeded oo caddaynaysa in maxuu ahaa table-kaygii la ii soo celiyo. hadda marka haddaan idhaahdo show recycle bin haddaan idhaahdo wax table ah oo ku jira malaha haddaan mar kala tirtiro drop table sample table oo aan idhaahdo show recycle bin waa kana marka original name recycle bin name sidoo kale marka aad soo celinaysid maxuu ahaa command-ga adeegsanaysid meesha aad table name-ka adeegsanay hadda waxaan adeegsanaynaa recycle bin name. Recovering table using recycle bin name anagoo markaan adeegsanayno marka waxaan leenahay marka si aan u soo celino flashback oo command-gii noo suurta gelinayay waxaan soo celinayno waa table-ka marka hadda awal meesha aan table name adeegsanayn hadda waxaan adeegsanaynaa flashback name-kan dabcan maadaama alphanumerics uu yahay waxaa waajib double quotation control v waa ku xiraynaa inta kale waa iska mid yihiin to markaasaan leenahay before drop intaan haddaan iraahdo marka marna waxaan adeegsaday table-kii magaciisa marna waxaan adeegsaday original maxuu ahaa recycle bin name-kii markii recycle bin la keenay ayadana markaan soo celinaa waa dooranayaa kadibna waxaan leeyahay ii soo celi flashback succeeded haddaan dib ugu noqdo oo aan iska tirtiro meeshan oo aan idhaahdo ii soo bandhig recycle binkii ii soo bandhig markaa idhaahdo hadda recycle binka wax ugu jira isla fahmay good mar kalaan tirayaa marka haddana table-ka isla table-ka yaa mar saddexaad aan tirayaa drop table name hadda waxaan rabaa markii table-kan la ii soo celinaa magac cusub inaan u baxsado magac cusub si aan ugu baxsadana waxaa adeegsanayaa command kale oo muxuu ahaa recovering table and renaming magacii inaan u bedelaan rabaa the table name maxaan sameynayaa marka hadda show haddaan idhaahdo show recycle bin markaan idhaahdo recycle binkan maadaama hadda table aan soo tirtiray waa kana table-kaana ku jiro magacaan waxaan rabaa markii la soo celinayo in la iga tirtiro horta meeshaan refresh iga dheh refresh markaan idhaahdo oo muxuu ahaa table iguma jiro waa ka maqan yahay sababtoo ah wuxuu yaalaa meeshan magacaan markaan soo celinayo marka waxaan leeyahay flashback table-ka marka waxaan leeyahay sample underscore table maadaama uu yahay waxaan leeyahay to before drop markaan sidaan idhaahda marka rename aan leeyahay rename markaan idhaahdo waxaan leeyahay to magacaan u bixinayo marka
recover underscore table recover table magacaana baxsanaya tablekan hadhow markii la soo celinayo marka tablekan magaciisa kan way original magaciisa oo la soo celinayo recycle binka laakiin markii recycle binka laga soo qaado waxa loo bixin doonaa magacaan cusub hadhowna markii maxuu ahaay flashback succeeded sidoo kale waa iska maxuu ahaa recycle binka tusaan leeyahay recycle binka maadaama aysan waxba ku jirin haddaan halkan tago oo aan refresh ilaahdo magaca ii soo baxayo waa kana recovery table haddaan double click laba jeer ku siiyo waa kana column 1 iyo column 2 ka kooban yahay iyadana waa la adeegsan karaa aad iyo aad u mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh fadlan ha hilmaaminina inaad channelka subscribe noo saartaan assalaamu calaykum